السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤال وذا صاحب ويان وحبين فرحة حبين ذيك العاوة وكدوية حبين كعاوة أهي حبين ذي هرواء وكدوية وحن هالكان هنبليو يبقادين فرحة ذي وذا توقع دريا ولالكي محمد حسن قوبي إيوه ولا شيء برن الدماشدي نستيحو قران عبد الله ومهركو دمانتو قميص أما أغلقل كودو وكدعي مقالة مقدشو وياه دعوة حجرت اللوغو دعيو أروس يضا وإنا فري نبي صلى الله عليه وسلم دعوة صاحي بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير الله إذا بارك عيونه لينهي وحبين فرحتين وحوليها مركا محمد ومسؤول باد كتها مونad gabadhaas madaxay inoo saaran tahay maalin iyo leeyla muran iyo ismaan dhaaf ka dhow mudanti weeyaan adiguna marwooy waa inaadan gabin mas'uulkaaga waa inaad mariinkiisa iyo garato maamuuska waa inaan maandhay la dhixnimin kabay jiifta haddii uu yar soo maato oo gala magaalkiisa waa inaadan su'aalaha mirta ah maanka kaga qaadin waxyaabaha ugu badan ee sanadadii dambe qoysasku ku burburaan waxa kamid ah xagee jirtay waad soo daahday waxa weeye telefoon iga maadan qaban ima aadan soo wicin waxyaabaha soo dhama iyadana uga digaynaa oo uga duceynaa inaysan ku dhicin insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa caawa habeen farxaday habeenka insha Allah ta'ala labaad oo dabaldagaynaa waa insha Allah bacda qarni iyo nolosheena oo waarta kuwa isku waara ubad أي إرساقد إلهي كمان نيستو دالكودا دادكودا دين تودنا أنفع إذنك دي أولاد إلهي دي قبرينا إن شاء الله واحد حورشتي فينا وحلاه حنبالي دو واحقين وعدنك كومنتيك شير لايك فولو بيج كينا تيك تاك بيج فيسبوك يوتيوب انتبه يوتيوب كانوا سيدو خلات وايديو عنا وحو ساريهي فيديو كان حتى أنصار لقى تيك توك لينكي وحو ساريهي دhanka message ama comment-ga ayuu linkiga soo dhigayaa sidoo kale to page Facebook linkigiisana waa u yaalaa isagan waara salaamu alaykum warahmatullah salaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh soo wada saaxiib wayaan waa habeen farxadeed habeenadii kale caawa oo ka duwan yahay habeenka caawa ahi habeenadii hore waa uu ka duwan yahay waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin farxadeeda wadata uga diraya walaalkay maxamed xasan qoobi iyo wala shay barna dumaashiday nasteexo qoraan cabdillah oo meherkooda maanta qamiis ama aqalgalkooda oo ka dhacay magaalada muqdisho